الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaanu bahda waxbarashada ee Soomaaliyeed gaar ahaan tiimka ku dhex jira banking sector-ka ama guud ahaan financial institutions-ka aanu ugu bishaaraynaynaa in aanu partnership aanu la galnay hay'adda caalamiga ah ee Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions oo loo soo gaabiyo AYUFI. hay-addaas oo bixisa programyo capacity building ah loogu talagalay in dadka ka shaqeeya institutionada maaliyadeed iyo guud ahaan dadka waxbarashada ku jiraba in aqoontooda kor loogu qaado. hay-addan AYUFI waa hay-ad international ah oo ku taalla waddanka Bahrain, wuxuuna aasaasay Islamic Development Bank asaasayaasheeda uu ka mid ahaa. sidoo kale waxaa asaasayaasheeda ka mid ahaa Al-Baraka Group, Faisal Group, Al-Rajihi Bank. sanadku markuu waa 1991. hay-addani waxay bixisaa programyo isugu jira kuwa fellowships la yiraahdo iyo kuwa la yiraahdo certificates of proficiency. kuwa fellowships-ka la yiraahdo ilaa 4 shahaado weeye. shahaadada koowaad waxaa la yiraahdaa CIPA baa loo soo gaabshaa, Certified Islamic Professional Accountant, oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya accounting-ka loogu talagalay. aan la soconno waxaa jira conventional accounting oo ka gadisan midkaan islaamiga ah. marka shahaadadaasi waxay u suurtagelinaysaa shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha maaliyadeed sida bangiyada, takaaful companies-ka iyo dhammaan mu'asasaadka in qofkii lagu tababaro accounting-kii, waliba islamic accounting. shahaadadaas waxay ranki la tahay shahaadooyinka caalamiga ah sida SCCA-da oo kale ayay ranki la tahay. waxay la dheedhahay in dadka qaab islaami kaliya accounting-kii loo baro oo recording-kii iyo maaragtay measurement-kii iyo recognition-kii iyo waxyaabahaas oo dhan qaabkii islaamika ahaan loo xisaabin lahaa. sidoo kale zakada iyo qaabka loo xisaabinayay oo sidaan la socono nidaamkan conventional-ka zaka calculation kuma jirto. waxaa jirta shahaado kale oo ayadana la yiraahdo Certified Sharia Advisor and Auditor oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya bangiyada, gaar ahaan dadka ka shaqeeya Sharia departments-ka, Sharia board-ka loogu talagalay, oo qofkii la barayo transactionadan ama activitieskan modern-ka ee bangiyada iyo institutionada maaliga ka dhex dhaca, iyo dadka Sharia auditors-ka ama dabagalka shariicada oo ayagana loogu talagalay inay qaataan shahaadooyinkaas. waxaa jira ayadana shahaadooyin la yiraahdo Certified Sharia Expert iyo Certified Sharia Auditor. runtii marka hore shahaadada hore ee Certified Sharia Advisor and Auditor oo hal ahayd ayay laba ka kala dhigeen oo waxay ka sameeyeen Certified Sharia Expert iyo Certified Sharia Auditor oo modules cusub oo intii hore ka badan lagu soo daray. haddaba shahaadooyinkaasi waxay anfacayaan ardada dhigata Islamic banking-ka, accounting-ka, economiga iyo shariicada. waxay sidoo kale anfacayaan ardada postgraduate-ka wadaha hadday tahay accounting, MBA iyo xataa shariicada. waxaa jira shahaadooyin kuwa ka horeeya oo loogu talagalay qofku marka hore inuu maaragtay base-ka laga soo dhiso. shahaado waxaa jira la yiraahdo kuwa hore marka waa fellowships, kuwana waa certificates. certificates waxaa ka mid ah Certificate of Proficiency in Financial Accounting Standards oo dadka qofkii la barayo financial accounting standards-kii qaab islaamiga loo barayo. si la socotid bangiyada islaamiga ah productiye bixiyaan ama waxaa jira contracts baa ka dhex jira sida mudaarabada iyo muraabaxada iyo mushaarakada. mid kasta
waxay leedahay standard oo qaabka muraabaxada accounting-keeda qaabku noqonayo qofka marka alaab uu soo codsado oo bangigu alaabta uu soo gato transaction ka dhacaya ama journal entry ka dhacaya noocu noqonayo marka alaabta qofka lagu wareejiyo transaction ka dhacaya ama journal entry ka dhacaya qaabku noqonayo terminologies laga yaabo in conventional accounting ay ku jireen sida hamish jiddiya iyo carbon iyo accounting-ka soo noqonayo zakada accounting-ka soo noqonayo dhammaan cuquudda sharciga musharakadii mudaarabadii salamkii istisnaacii wakaaladii all waxay leeyihiin accounting bay leeyihiin haddaba walaalayaal shahaadadaasi waxay anfacaysaa dhammaan accountantska qof kastoo accounting ku shaqeeya waxaa khasaba inuu ogaado islamic accounting-kana waa inuu ogaado barto maadaama aan ogaanay waddankeena in gaab fara badan kaga jiro waxaanu anagoo partnership la galnay hay-addaasi waxaan u keennay courseskaas oo aan rabno insha allah tacaala inay ka faa'iidaystaan qaab discounted ah oo maaragtay sida normal fee-ga oo caadiga ah ee aad uga hooseeyo aan dhihi karno boqolkiiba 98 discounted ah isagoo ah waxaanu insha allah tacaala ka saacidi doonaa dadka in ay ku baasaan imtixaanka baan ka saacidi doonaa waxaan u samayn doonaa tuitions casharo free ah baan u samayn doonaa insha allah tacaala oo qofkii boqolkiiba boqol inuu imtixaanka u kasoo dhigta maahay in qof ku baaso ay u fududaanayso haddaba waxaan ugu baaqaynaa baxda jaamacadaha shaqaalaha financial institutionska in programyadaasi aanu keennay oo bulshadaan u keennay inay ka faa'iidaystaan waan isleenahay runtii wax badan bay kusoo kordhinaysaa qofka aqoontiisa wax badan bay kusoo kordhinaysaa haddaba waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala in programyadaasi laga faa'iidaysto insha allahu tacaala